Bismillahi Raxmaani Raxiim. Kusoo dhawaada cashirkeennii sagaalaad oo aan maanta kaga hadlayno xanuunka loo yaqaano caabuqa kaadi mareenka, af Ingiriiskana lagu yiraahdo urinary tract infection, loona soo gaabiyo UTI. Xanuunkan waa xanuun ku badan bulshada. Kaadi mareenka marka la dhahayo waxaa loola jeedaa ilaa 4 xubnood oo ku shaqo leh xagga kaadida, kuwaas oo kale ah kelyaha, tuubada isku xirto kelyaha iyo kaadi heesta, taasoo loo yaqaano ureter, Soomaali lagu dhaho lise. Sidoo kale kaadi heesta iyo tuubada kasoo baxda kaadi heesta oo soo saarto kaadida. Haddii marka intaas mid ka mid ah cilad ay ka jirto infection ahaan ayaa xanuunkan loola jeedaa UTI ama caabuqa kaadi mareenka. Badanaa infection-ka wuxuu ku dhacaa kaadi heesta, kadibna wuxuu u gudbi karaa kelyaha. Kelyaha inuu badanaa infection-ka gaaro way yar tahay, laakiin hadduu gaaro xaalad halis ah ayay tilmaamaysaa oo ma fiicna infection-ka kelyaha u gudbo. Kaadi heesta markuu qofka infection-ka ka hayo, qofku wuxuu dareemayaa kaadida oo gubayso, kaadida oo xanuunjinaysa markuu rabo inuu kaadiyo, kaadida oo tis-tislaynayso xanuun dartiis, kaadida oo markay soo bixi rabto qofku uu dhahayo way igu cararaysaa ama dib ay igu laabanaysaa. Sidoo kale qofka oo musqusha ku laalaabto, kaadida inaysan kasoo wada dhammaanayn xanuun dartiis uu dareemayo. Sidoo kale meesha xudunta ka hooseyso ilaa bisqinleyda qofka danqanayso ama xanuunayso. Sidoo kale qofka wuxuu isku arki karaa xanuunka hadduu muddo hayo in kaadida dhiig soo raacdo ama kaadida midabkeeda isbedelo oo ay u ekaato sidii shaah. Sidoo kale haddii aan xanuunkan la daaweynin, waxaa laga yaabaa inuu kelyaha u gudbo. Kelyaha inuu u gudbay calaamadaha lagu fahmo waxaa ka mid ah meesha kelyaha ku jiraan inay ku xanuunto oo ah meesha jilcan oo feeraha ka hooseyso xagga dambe ee dhabarka. Sidoo kale qofku wuxuu isku arkayaa qandho iyo qarqaryo. Carruurta badanaa markuu infection-kan ku dhaco, waxaa laga yaabaa inaysan waxyaabahan dhan aysan sheegi karin, laakiin kaadida ka baxsato habeenkii inay isku kaadiyaan inay bilaabaan ayaa laga yaabaa. Sidoo kale inay ooynayaan markay kaadi hayso ama kaadida isku celinayaan xanuunka dartiis. Xanuunkan marka maxaa keeno? Xanuunkan waxaa keeno waa caabuq jeermis bacteria ayaa keento. Badanaana jeermiska ugu badan oo keeno waxaa loo yaqaanaa E. coli. Waa jeermis ku nool xiidmaha iyo mindhicirrada. Marka xanuunkan yaa u nugul ama yuu badanaa ku dhacaa ama yuu u badan yahay. Xanuunkan badanaa wuxuu ku dhacaa dadka hore u qabay xanuunkan oo aan laga daaweynin ama xanuunka uusan ka bixin. Sidoo kale xanuunkan wuxuu ku dhacaa dadka lamaanaha oo isqaba oo weliba is araggooda uu badan yahay. Sidoo kale xanuunkan wuxuu ku badan yahay oo lagu arkaa hooyooyinka uurka leh. Sidoo kale xanuunkan wuxuu ku dhacaa haweenka dhalmo-deyska ama marxaladda menopause-ka galay. Sidoo kale xanuunkan wuxuu ku dhacaa dadka catheter-ka la nool ama catheter-ka isticmaala oo ah tuubada kaadida qofka kasoo saarta. Sidoo kale wuxuu xanuunkan ku dhacaa dadka hore uga jirnaa kaadi mareenka ama dhagax ku jiray ama cilad ay ka haysatay xagga prostate-ka. Sidoo kale ciladan waxaa lagu arkaa dadka difaacooda hooseeyo. Sidoo kale xanuunkan waxaa badanaa lagu arkaa dadka sokorta qabo maadaama kaadida ay macaan tahay oo sokortaas kaadida ku jirta ayaa keenaysa in kaadida u sahlanaato in infection ku tarmo. Ugu dambeyn, xanuunkan wuxuu ku badan yahay dadka nadaafadooda liidato. Xanuunkan haddii la daaweyn muxuu keeni karaa? Xanuunkan haddii la daaweyn wuxuu keeni karaa inuu kelyaha hawlgabiyo, in infection-kaas kaadida ay malax isku beddesho oo kelyaha ay dhex fadhiisato oo qofka qalliin u baahdo ama in laga soo dareeriyo. Sidoo kale infection-ka inuu dhiigga u gudbo oo keeno xaalad loo yaqaan sepsis, taas oo ah qofka inuu ku sumoobo infection-ka dartiis oo xaalad emergency uu galo. Sidoo kale hooyooyinka uurka leh haddaan xanuunkan laga daaweyn wuxuu keeni karaa inay ilmaha kasoo dhacaan ama ilmo dhicis ay dhasho. Xanuunkan marka sidee looga hortagaa? Sida hore usoo sheegay, xanuunkan waa xanuun ka hortagidiisu ay fududahay, daaweyntiisuna ay fududahay, laakiin dhibaato keeno haddii la isku fiirsado oo aan daawo loo qaadan. Badanaa xubnaha taranka wuxuu Ilaahay ugu sameeyay qanjiro soo daaya dheecaano dila jeermisyada. Khaasatan dumarka oo kale maadaama janiska infection-ka inuu ku dhaco uu badan yahay, qanjiradaas dheecaanada ay soo daayaan waxay isu dheelitiraan jawiga xubinta taranka, taasoo ka hortagta caabuqa bakteeriyada. Xanuunkan waxaa looga hortagi karaa qofka inuu biyo badan cabo oo biyo cabitaankiisu uu badan yahay, taasoo janis aan siinaynin bakteeriyada inay ku taranto xagga kaadi heesta. Sidoo kale xanuunkan waxaa looga hortagi karaa in lagu dadaalo nadaafadda xagga hoose, khaasatan markii saxarada la iska dhaqayo oo kale in xagga dambe loo dhaqo oo aan horey loo soo dhaqin, taas oo laga hortagayo in jeermis xagga saxarada ka yimid inuu kaadi heesta soo gaaro. Sidoo kale lamaanaha la kulankoodu badan yahay waxaa lagula taliyaa inaysan jiifan kaadi heesta oo buuxda la kulanka kadib oo ay kaadiyaan kaadi heesta faaruujiyaan ayna dhaqdhaqdaan. Taas waa muhiim.
badanaa infectionkan caabuqa ah nooc waxaa jira ku badan dadka hadda isguursaday oo cusub kaasoo loo yaqaano honeymoon cystitis. waa caabuq u khaas ah dadkaas. waxa keenayaan waxaa waaye la kulankaas badan iyo kadib oo aanan la sameynin taxadirkan ah in qofka uu musqusha ku laabto oo uu kaadiyo oo kaadi heystiisa faarujiyo uu dhaqdhaqdo oo sidaa ku jiifto. sidoo kale waxaa looga hortagi karaa ciladan inaan la isticmaalin waxyaabaha bedeli kara isu dheelitirka dheecaanada xubinta oo ay ka mid yihiin waxyaabaha dumarka qaar ay isticmaalaan oo la yiraahdo waxaa lagu carfiyaa xubinta ama waa lagu qiiqiyaa ama waa la mariyaa ama waa lagu buufiyaa. waxyaabahaas caafimaad ahaan sax maahan, waxayna kordhiyaan jaaniska ah inay meesha ku dhasho infection, ha ahaado infectionka mid oo bacteria ah ama mid caabuq oo cabeeb ah. taas iyadana muhiim waaye. wax walba oo bedeli kara halkaas special waxyaabaha carfa oo sentiga leh ama perfumeska in laga ilaaliyo meeshaas waa muhiim. midda kale oo iyadana muhiimka waxaa waaye xanuunkan UTI-ga ama caabuqa kaadi mareenka ma ahan xanuunada galmada lagu kala qaado. xanuunkan markasta loo baaraa. xanuunkan baaritaankiisu wuu sahlan yahay. waa qofka kaadida laga qaadaa la fiiriyo infection uu jiro heerka uu marayo. hadduu infectionka qofka kusoo laalaabteen waxaa loo sameeyaa wax la yiraahdo urine culture oo ah in kaadida la abuuro oo la ogaado bacteriada hayse nooc ay tahay iyo daawada wax ka tari lahayd oo lagu tijaabiyo kadibna qofka daawada la siiyo si looga cirib tiro. haddii xanuunka laga shakiyo inuu kelyaha gaaray ama kaadi heysta la yiraahdo waxbaa ku jira ama qashin jira in computerka ultrasound la saaro la fiiriyo. sidoo kale haddii uu kaadi heysta isbedel ku dhaco infectionkan kusoo laabto awgeed ama darbiyadeeda isbedel laga dareemay ama loo baahdo in dheecaan laga soo qaado si baaritaan loogu diro waxaa lagu sameeyaa qofka wax loo yaqaan cystoscopy oo ah bahal camera wadato oo ibta la gelinayo oo kaadi heysta lagu soo sawirayo ama dheecaan looga soo qaadayo. xanuunkan daaweyntiisu way sahlan tahay. antibiotic ayaa loo qaataa kaasoo ay ku xiran tahay infectionka heerku gaarsiisan yahay ama kaniiniyaal ayay noqon kartaa ama cirbada ayay noqon kartaa. intaas kusoo gabagabeynayna cashirkeena waana mahadsantihiin.